dhalinyaro kusoo dhawaada cashirkeenii dhexaad ee koorskeena Introduction to Cybersecurity. Cashirkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa waxay yihiin vulnerabilities, sida ugu samaysmaan iyo qaabka looga hortagi karo ama uga taxadiir kartid. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Vulnerabilities marka la joogo saaxadda cybersecurity-ga waxaa loo adeegsadaa daciifnimo ku timaada software-ka. Software-kaas wuxuu noqon karaa operating system-ka computer-ka ama mid ku kooban kaliya application khaas ah. Soomaalihaan waxay ku noqonaysaa guduleelo oo waa duleel ku yaala software-ka kaasoo looga faa'iideysan karo in laga soo geliyo waxyaabo dhibaato ku ah qofka isticmaalaya software-ka ama computer-ka. Haddaba sidee ayay ku dhacaan guduleeladu ama ku samaysmaan? Hagaag waxyaabaha sababa inay dhacaan guduleeladu waxay ka soo qaadanaynaa afar wax. kow, baaxadda software-ka. marar badan waxaa dhacda in software-ka complex-ka ah ama baaxadda weyni ay ku soo baxaan guduleelo badan haddii aan si fiican looga taxadirin oo la marsiin tijaabooyin badan oo lagu hubinayo ammaankiisa. laba, tirada qalabada ku xidhan network-ga. sidaan hore uga soo hadalnay casharradeenii hore, network waa markay isku xidhan yihiin wax ka badan 2 kombiyuutar kuwaasoo xog wadaagi kara. haddaba markastoo ay bataan qalabada ku xidhan network-ka waa markastoo ay bataan khatarta ay ku samaysmi karto guduleelo. 3, khalad ka yimaada developerska. waxaa jira dhacday marar badan ay guduleeladu ka samaysmaan khalad ka yimaada qofka ama teamka programmerska ah ee develop garaynaya software-ka, sida inay maqan yihiin encryption-kii lagu talagalay in lagu encrypt gareeyo xogaha sirta sida password-ka iyo username-ka kale, ama in design-ka software-ka iyo qaabka uu yaallo aanay ahayn mid awood leh. arrinka afraad ee sababi kara vulnerabilities ama guduleelo waa software-ka waqtigiisa dhacay. si fudud marka la soo saaro update, macnihiisu waa in version-kii hore laga helay guduleelo, ha ahaadaan kuwa ay shirkaddu og tahay iyo kuwa la wada og yahay. update-kan waxa uu xalinayaa guduleeladaas. haddaba waxyaabaha dhici kara haddii guduleeladan la xalin waayo waxaa ka mid ah in hackerska xun ay helaan meelo iyo waddooyin ay kasoo galaan system-ka, iyagoo u geysan kara dhibaatooyin, xadi karana xogaha, delete garayn karana xogaha ku jira system-ka, ama kuwa xidhan kara ransomware. wada xasuustaa soo maahan ransomware? okay, haddaba maxay yihiin waxyaabaha looga hortagi karo ama lagu xakamayn karo vulnerabilities-ka? ugu horreyn waa in la soo helo halka uu ka jiro guduleelku, markaa kadib ayaa la xallin karaa. haddaba marka la soo helo waxaa la sameynaya in la qiimeeyo khatartu intay leeg tahay, oo mid u baahan xallin degdeg ahba mise waa mid laga tegi karo, iyagoo xallintooda loo kala horeysiinaya siday kula mudan yihiin. haddaba qaababka lagu hagaajiyo waxaa ka mid ah in la cusboonaysiiyo software-ka iyo in xeerar cusub lagu daro firewall-ka oo aynu ku arki doonno casharada dambe waxa uu yahay iyo waxa uu qabto. sidoo kale waxaa la samayn karaa in shaqada laga joojiyo qaybta ay ku timi guduleelku, oo ama la helo meel ka fiican ama aan loo baahnayn. cashirkeena maanta intaas ayuu ku eegyahay. waxaan rajaynaya inaan isla fahanay waxyaabaha aynu ka soo hadalnay ee vulnerabilities-ka. ha ilaawin inaad muuqaalka laga saarto, channelka nagu soo biirto. mahadsanid.